waxay tiri dhakhtaraddan oo u dhalatay dalka Sacuudi Carabiya. waxaa maalin maalmaha ka mida ii soo dhacay 2 telefoon. labada telefoonba waxay ii sheegayeen in ay jiraan 2 carruura oo laga kala helay 2 masaajid oo kala duwan. labada masaajidna midna wuxuu ku yaalaa Jiddah, halka midka kalena uu ku yaalo magaalada Makka. labada masjidba 2 cunug oo la soo dhigay ayaa laga helay. waxay tiri ilmaha la soo ururiyey ee la keenay qaybta xanaanada ee magaalada Makka aad ayay u bateen, balse Ilaahay wuxuu fududeeyey in qaybta xanaanada ee Jidda ilmihii la keenay dad muxsiniin ah ay kala qaateen. sidaa daraaddeed hawsha qaybta Jidda wayba fududaatay. waxaana Ilaahay ii fududeeyey bay tiri in la soo qaado 2dii cunugba, midna la keeno qaybta xanaanada ee Jidda, kii kalena la keeno qaybta magaalada Makka. laakiin dhakhtaradii ilmaha aruurin jirtay 2da cunug waxay aragtay inay aad isugu eg yihiin, yacni kii laga helay masjidka ku yaalla magaalada Jidda iyo kii kale ee laga helay masjidka isna ku yaalla magaalada Makka al-Mukarrama. dhakhtaradii ayaana hadalka sii wadata, waxayna tidhi baaritaan ayaan ku samaynay cunugii yaraa ee lagu hayay magaalada Makka. waxaan baarnay taariikhda 2da cunug ay dhasheen. saa waxaan aragnay inayba dhasheen hal taariikh, yacni hal maalin oo qura ay wada dhasheen. intaa kadibna waxaan baarnay nambarka cunugga. saa waxaan ogaannay inuu mataan la yahay cunug kale. baaritaan ayaan sii samaynay, waxaannu ogaannay in hooyada cunuggan dhashay iyo aabbahaba ay isbitaalka ka baxeen. sidoo kalena waxaan helnay sawirradooda iyo macluumaad ku saabsan iyo weliba ciwaankooda ama adreeskooda. dhakhtarkii ayaan ka codsannay in basmada ama calaamadda 2da suul ee ilmaha la baaro, balse arrinta kediska iyo layaab kale waxay ahayd in ilmihii basmadoodii ama calaamaddii suulka ay islahaatay. xitaa waxaan samaynay baaritaan dhanka DNA-da ah, laakiin dhammaan natiijooyinkii waa iswaafaqeen. intaa kadibna waxaan raadin u galnay hooyada ilmahan dhashay, maadaama aan ciwaankeeda iyo macluumaadkeeda isbitaalka ka helnay. ugu dambaynna waxaan helnay gabar miskiinah oo hooyadeed oo da'ah la joogta, gabadhuna ay keligeed ku tahay hooyadaas miskiinta ah ee da'da ah. waana qoys u dhashay waddan kaloo carbeed, balse aan Sacuudi u dhalan. waxaan ogaannay in hooyadani gabadheeda ay u guurisay nin isla waddankooda ah, sidoo kalena ka shaqeeya magaalada Makka, una soo raaceen magaalada Makka maadaama aanay helaynin cid kale oo halkaa ku biilaysa ama halkaa ku daryeelaysa. gabadhii ayaan weyddiinna bay tidhi, ilma miyaad dhashay? markaa bay tidhi, haa, waxaan dhalay 2 mataano ah oo weliba lab ah. waxaan weyddiinna bay tidhi, aaway 2daas mataanaha ah? waxay ku jawaabtay, aabbahood ayaa qaaday, wuxuuna igu yidhi waan soo gudayaa. kadibna muddo ayaan sugayey oo waan waayey. telefoonkiisii ayaan wacay, waxaan soo ogaaday inuu telefoonka xirtay. waxaan u sheegna bay tidhi in 2da wiil ee mataanaha ah inaan annagu hayno. kadibna markii aan u geynay si ay u aragto, way gariirtay iyadoo ooynaysa oo qaylinaysa. waxayna tidhi, alla ilmahaygii waa kuwan, ilmahaygii. kadibna qof walboo meeshaas joogay wuu la ooyey ooyintii ee hooyada miskiintaa oyday owgeed. waxaase la yaab lahayd in 2da cunugba ay dhabta hooyadooda ugu fadhiyeen si deggan oo xasilooni leh. kadib markii ay xasishay xaalkeediina caadi noqday ayaan weyddiiyey bay tidhi, ilaah baan kugu dhaariyee maxaad ku ducaysatay si Ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmahaaga kuugu xafido oo markaana uu kuugu soo celiyo? waxay tidhi hooyadii, markii ninkaygu qaaday ilmaha oo ii sheegay inuu geynayo meesha ilmaha lagu gudo kadibna uu soo celinayo, waxaan akhriyey ducadii nebiguna baray calayhi salaatu wasalaam oo ahayd, waxaan idinku ammaanaysanayaa allaha ammaanadii loo dhiibtaa aysan dayacmin. markaan ogaada bay tidhi markii aabbihii dhalay telefoonka iga qaban waayey kadibna uu iga xirtay, waxaan aaminay oo yaqiinsada bay tidhi inuu ilmahaygii la aaday waddankeennii. intaa kadibna salaad baan tukanayey, ilaahay baan baryayey oo erayadan ayaan ku celcelinayey. boolis uma sheegin, cid kale lama wadaagin, waan iska ooynayey oo keliya. salaadda ayaana tukanayey, waxaana ku ducaysanayey allihii nebi muuse u soo celiyow hooyadiis, ilaahuw ilmahayga ii soo celi. waxayna tiri ma ogeyn in ninkaasi dulmifalaha ah uu 2deeda ilmood ku kala tuuri doono 2 masjid oo ku kala taalla 2 magaalo oo kala fog. intaa kadibna dhakhtaradii waxay ku tiri gabadhii, ilaahay ilmahaaga waa kuu xafiday, sababtoo ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ku barisay niyad dhab ah oo ikhlaas iyo alla dartii ay la jirto. sidaa daraaddeed Ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmahaagii waa kuu xafiday, waana kuu soo celiyey. hooyadii dhallinyarada ahayd ee 20 jirka ahayd isbitaalkii ayay ka baxday ilmaheeda ayayna qaadatay iyadoo rumaysalla waxa dhacay, aadna u faraxsan, ilmaheediina midba mar eegaysa. ilaahay ayaa mahad iska leh, hooyada miskiintaa u soo celiyey ilmaheedii. hooyana waa sidaas ayay noogu cabsataa, nooga taxadartaa. iyadoo sidaa noogu cabsanaysa, dhibkaan ogayna naga soo martay ayaa dadka qaarkii isku taagayaan. wardadow hooyooyinkiin ka warhaaya. ومن
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.